madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddi loogu talagalay inay arrimaha abaaraha ka shaqeeyaan. guddidaas mudane madaxweyne lama hayo meel ay jaan iyo cirib dhigeen, lama yaqaan shaqada ay qaranka u hayaan. wixii aad u igmatay way haleeyeen. dadkii gobollada dalka min galbeed ilaa bari shaqadii loo igmaday markay ugu yaraato halkii ay warbixin ka keeni lahaayeen wax warbixina lagama hayo. maadaama ay xoolihii ummadda ka dhammaadeen, waxaa loo baahan yahay in dadka la badbaadiyo oo si aanay arrin bini aadamnimo inoo soo food saarin. waxaananu madaxweynaha odhan lahayn guddidaasi maadaama ay wax matarayaal noqdeen, aan la aqoon halkay joogaan, halkay ka shaqeeyaan iyo waxay qabtaan, waxaa madaxweynaha fiicnaan lahayd inuu madaxweynuhu guddidaa ka bedelo ummadda oo guddi kale oo u shaqeynaysa oo markay ugu yartahay dadka badbaadinaysa oo goobaha magaalooyinka isugu keenaysa uu madaxweynuhu soo sameeyo, soo magacaabo. guud ahaan way ceebaysan yihiin guddidaasi, waana in la cambaareeyana iyagaa mutaystay oo dee shaqadii loo igmaday oo weliba ahayd mid la xidhiidha bini aadamnimada oo xagga ilaahay iyo xagga adduunyo labadaba lagala xisaabtamayay bay haleeyeen. culimaa ku jirtay, siyaasiyiin baa ku jirtay, laakiinse doorkoodii may qaadan oo maaha guddi la yaqaano. good ay ka shaqeeyeen gaar ahaan gobollada bariga oo ah gobollada aadka iyo aadka abaarta ugu sii xun tahay, inay yimaadaan oo ay dadkii tabaalaysnaa soo eegaan oo wixii biyo hadday biyo tahay hadday wax tahay quudba ay soo gaadhsiiyaan, midna lagama hayo. aakhirkii waxaan kusoo gabagabeynayaa hadalkayga, guddidaana in nalaga bedelo oo la bedelo ayaa muhiima. aad iyo aadna waan u salaamayaa dhammaanba bulshada reer Somaliland. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.